haatanna waxaan maraynaa sheekadeenii 48aad ee luqadda Talyaaniga. Sheekadan waxay ku saabsan tahay lamaanahan halkan idinkaga muuqdo. waana sheeko aad iyo aad u xiiso badan. waxayna ku bilaabanaysaa sidatan: Lavoro da casa, waxaan ku shaqeeyaa guriga. Perché maxaa yeelay sono waxaan ahay un insegnante, maclimad online oo online ku shaqeyso. Joogsi: mio marito, saygeygana lavora wuxuu ka shaqeeyaa in un ufficio, xafiis. Joogsi: lui isaga ee un economicista, waa qof ku shaqeeyo economicska ama dhaqaalaha. Joogsi: affittiamo, waxaa inoo kiraysan un appartamento. Joogsi: lavoriamo, waxaan shaqeynaa ogni giorno, maalin walba. Per comprare, si aan u iibsano una casa, guri, iyo una macchina, gaari. aad iyo aad waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. mar kale ku celinaynaa: Lavoro da casa, waxaan ku shaqeeyaa ama waxaan ka shaqeeyaa guriga. Perché maxaa yeelay sono un insegnante online, waxaan ahay maclimad online-ka dadka wax ku barto. Mio marito lavora, saygeygana wuxuu ka shaqeeyaa in un ufficio, xafiis. Lui è un economicista, isaga wuxuu ku shaqeeyaa cilmiga dhaqaalaha. Affittiamo un appartamento, waxaa inoo kiraysan appartamento. Lavoriamo ogni giorno, waxaan shaqeynaa maalin walba. Per comprare una casa, si aan u gadano ama aan u iibsano guri, iyo una macchina, gaari. aad iyo aad lamaanahan sheekada waxaa wado gabadha. waxay leedahay waxaan ku shaqeeyaa guriga sababtoo ah waxaan ahay maclimad online-ka dadka wax ku barto. saygeygana wuxuu ka shaqeeyaa xafiis. wax uuna ku shaqeeyaa ama isaga wuxuu yahay qof dhaqaalaha soo bartay ama economicista weeyaan. waxaana inoo kiraysan appartamento. waxaana shaqeynaa maalin walba si aan u iibsano guri iyo gaari. aad iyo aad si caadi ah aqrinaynaa: Lavoro da casa, perché sono un insegnante online. Mio marito lavora in un ufficio. Lui è un economicista, affittiamo un appartamento. Lavoriamo ogni giorno per comprare una casa e una macchina. aad iyo aad waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. erey nagu cusub meeshan maxaa ugu jiro keliya ereygan affittiamo oo ah waxaa inoo kiraysan. waxaa u kiraysan appartamento. comprare iibsasho waayay, guri iyo gaari. lavoriamo waxaan shaqeynaa oo kale waay. okay. ufficio waa xafiis caadi, waa fahmaysin. marito waa say, waa kan. marka aad iyo aad waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. haddii aad fahantay kusoo qor commentiga waa fahmay. haddii aad fahminna soo qor ma fahmin si aan kuu fahansiino. okay, ciao ciao.